الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله أيها المسلمون عباد الله حمانا بدن باجيرو سوقيدنا maanta ka muuqda xumaanahaas waxa kamid ah qishka oo qofku dadka shayga uu iibinayo wanaagiisa inuu u muujiyo afyaarag baynu ugu muujiyo xumaantiisana inuu ka qariyo xumaanahaas waxa kamid ah cayda oo nabigu yiri sibaa muslim fusuuq وقتاله كفر وحكمذا نعدش حمانا سوى حكمذا هيساها موسيقى وطا القوادي ذا قاركود كصوب حياة دادك دقودة سوى قارية أما كشيدان قوبها قنعسي أما ميلك هلبا حمانا سوى حكمذا تبرج النساء في الأسواق إنه دمركو بلا حجاب سوقيدا وقبحان حمانا سوى حكمذا اختلاط الرجال بالنساء ragga iyo dumarka aan mahram iyo xaastoon ay soo hayn inay isdhex galaan suuqyada goobaha caafimaadka goobaha waxbarasho gaadiidka caamka guud ee dadku ay wada raacaan xumaanahaasi waxa kamida dhaarta ilaahay cid aan ahayn lagu dhaarto rasuulku shirku uu ku sheegay waxa kamid oo kuwa waaweyna dadka qaarkood inaad ka maqasho iyagoo dad dhintay baryaay ilaahay cid aan ahayn iyagoo weydiisanay wax ilaahay uu bixin karo waxa kamid ah dadka qaarkood inay aflagaada u quuraan Allah abuuray rasuulkii qiimaha badnaa ee ilaahay u soo diray si ay adduunyo aakhiraba u badbaadaan diinta islaamka ee dantoodu ay ku jirto adduunyo aakhiraba xumaanaha noocaasi ah dadka in fara badan oo samaynahayn waajib ay ka gaabiyeen baa jira waajibkaas waa maxay waa in dadka xumaanta sameynaya ay ka reebaan war ilaahay ka baqo iska daa dadka gaar ahaan muujisanaya dadka xuquuqda ilaahay dayacaya ee ogiyeen taariku salaad inay yihiin inay wanaaga faraan war ilaahay ka baqo salaada tuko wanaagyada kalena waa sidaas oo kale salaadu waa tusaalaune waxaad moodaa dadkeena in badan oo kamid inay aamineen wanaagga in la isfaro xumaanta in la iska reeba inay tahay shaqo cid gaar ah loo diray waa arin qof kasto oo muumina loo diray oo umada nabi maxamed kamida man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wadhalika adhafu al-iman mid kasto idin kamida oo xumaan arka xumaantaasi ha baabiyo gacantiisa ku baabiyo haduu awood u leeyahay taladiisana ay hoos timaado munkarka cidda lagu sameeyo lagu sameeyo ama cidda sameynaysa haddaanu awoodinna afka ka hadlo warxumaanta iska daayo ilaahay ka baqda ha yidhaahdo haddaanu intaa awoodin oo dhibaato taa ka weyn ka baqayana xumaanta qalbiga ka naco meesha lagu sameeyo ha iskaga tago waa sifa ay muuminiintu leeyihiin seen hore u sheegnay shardi uma aha inaad dadka wanaaga farto ama xumaanta aad ka reerto inaad caalim tahay ama sheekh tahay inaad muumin tahay baa kugu waajibinaysa isla markaana aad garanayso waxaan la sameeynaya inuu xumaan yahay waxaan la dayacay laga tagayna inuu yahay wax wanaagsan oo kamida xuquuqda iyo farallada ilaahay kitaabkiisa uu ku waajibiyay ama ala lisan rasuulihi sallallahu alayhi wasallam ayuha almuslimuuna ibadallah xumaanta suuqyada iyo goobaha muuqda lagu sameynayo kuwa sheegay tusaalayaal u yihiin haddii aynu ka aamusno shaydaanka iyo dadka sameynaya dabada uu ka riixayaaba way soo dhiiranayaan maalinta ka dambeysana way sii badanaysaa haddii se qof waliba waajibkaasi uu guto isagoo ku ixtisaabayo ilaahay ajir kaga doonaya dadku waa dad muslimiina oo qalbigooda iimaan ku jiro waanadu way anfacaysaa ugu yaraan markuu qof waliba la hadlo qofkii xumaanta ku hadlaya ama sameynaya muujisanayay qofku uu xishoonaya oo ugu yaraan xumaantii si qarsoon oo hoose ayuu u sameynaya waad ogtihiin in la caayo ilaahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo diinul islaam dalkeena si ay ku ahaan jirtay maanta ilaahay baa mahaddeeda leh aad bay u yaraatay waxyaabaha sababta u noqdayna waxaa ka mid ah wacyigelinta culimada iyo hay-atul amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar guddida wanaag farista iyo xumaan reebista oo arintaasi aad uga shaqaysay oo maanta halkii qofka caaya ilaahay ama rasuulka ama diinul islaam
isagu soo indha cadaan jiro oran jiray maxaa ka galay mataadaan caay diintaadaan caay maanta ugu yaraan marka la yiraahdo amru macruuf kibaan u yeedhayna uu dhuumanaya oo cararaya rag baa magaalada uga baxay oo baxsaday erga soo dirsaday oo yiri shahaada halay qabto waan toobad keenaya waan iska daynayaa hadii la iska dayn lahaa sidoo ma isaga socon lahayd waa tusaale waaqici oo nolosha ka dhex muuqdo tusinaya munkarka iyo xumaanta ummadda ka dhex muuqata hadii la dagaalamo si shariicada waafaqsan munkarka loola dagaalamo wanaagana loo baahiyo wanaagu inuu badanayo xumaantuna inay yaraanayso waajiba koowaad wuxuu saaran yahay dawladda iyo dadka ummadda diintooda iyo adduunyadooda mas'uulka ka ah inay la dagaalamaan munkaraadka iyo fawaaxishta iyo xumaanaha ummadda ka dhex muuqda qof kastoo muslimana inta awoodiisu gaadhisantahay waajib saaran weeye ayuha almuslimuuna cibaadallah nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam hadduu arko qof wuxun ku hadlaaya ama samaynaya iskama dhaafi jirin saa maanta in badan oo inaga mid ay sameeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka reebi jiray xumaanta waana ka waanin jiray laba tusaale haddaynu soo qaadanno nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray suuqa sida muslim saxiisa ku wariyay raashin tuula oo meel tuulan oo inuu iibinayo gacanta gali nabigu cidna ma basaasi jirin laakiin calaamadaha ka muuqda tusinaya xagga hoose iyo xagga sare inaan isku mid ahayn gacantii rasuulku qoyaan bay gaadhay ninkii iibinayay buu rasuulku tusoo waraa maxay waxani wuxuu asaabatu samaa ya rasuul allah roob baa helay oo ku daay rasuulka ilaahayow faqala fala jacaltahu fawqa at-ta'am hatta yarahu an-nas warka qoyaan ma dusha soo maris dadku si ay u arkaan oo kii qoyaan ku iibsanaya ku iibsan kii kalena uu iska daayo man ghasha falaysa minni rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam qofka shayga xumaantiisa dadka ka qariya wanaagiisana u muujiya dayru aniga iga yahay wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam markala soo maray gabadh ilmo yar oo ay dhashay oo dhintay qabrigiisii ka dulooyay nabigu iskama dhaafin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ittaqillaha wasbiri rawahu al-bukhari wa muslim gabadha ilaahay ka baqo sabir qabrigana iskaga dultag qayladan iyo wahintana iska daa gurigaaga ku noqo bal ka warrama haddii shaqada aynu wada qaban lahayn inta awoodeen iyo aqoonteenu ay gaadhiisan tahay ilaahay diintiisu kor bay noqon lahayd afcaashi iyo aqwaasha ilaahay raalli gelinaysa dhexdeena ku badan lahayd inta xuna ilaahay ka cadhaysiinaysa baraka la'aan sabab u noqonaysaana way yaraan lahayd waxay noqon lahayn jiil iyo ummad lamida ama bas la sifaa saxaabadii rasuulka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu rabbiyay wahakada kaana saxaaba xumaan iyo munkar iyo arkaan may dhaafi jirin iyo culamaa ulislaam biidni illaahi subxaana wa tacaala khudbadaha soo socda waxaan kaga hadli doonaa nidaamu lxisba fi lislaam iyo bal suuqyada islaamka dadkii ka hawlgeli jiray ee ka shaqayn jiray islaaxu dunya naas wa diinihim iyo kutubta culimadu ay ka qoreen taasoo muujinaysa laba arrimood arrinka koowaad oo ah diinul islaam inay tahay diinul xayaat diintii nolosha oo radinku waa calmaaniyiinta odhanaya diintu waa cibaado ilaahay iyo addoonkun u dhaxaysa nolosha shaqo kuma laha arrinta labaad ay daliil u tahayna waxa weeye sida suuqyada muslimiintu ay u horumarsanaan jireen ee u nidaamsanaan jireen markii uu jiray nidaamul amri nidaamul xisba wal amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar maanta wax badan oo aynu saluugayna inuu aragna ama aynu maqlaynana sababteedu ay tahay in la dayacay waajibka noocaasi ah اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اهد ضال المسلمين وعلم جاهلهم وأصلح أمورهم واجمع كلمتهم على الحق المبين يا رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد